كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركii 87 qaybtii labaad ee dhisidda ubadka jidhkooda ee barnaamijkeennii barbaarinta ubadka. Waxa aynu soo dhammaystirnay oo muddooyinka u dambeeyay ka soo warramaynay noocyada jimicsiga iyo marxaladaha kala duwan ee ubadka loogu doorayo qaabka u jimicsanayaan baynu aad uga soo warranay. Haddaba waxaynu ku soo gabagabayn doonaa casharkan iyo cashar ka dambeeyaba bal hadda maxay tahay faa'iidada ku jirta ama faa'iidada ku jirta waa maxay noocyada kala duwan ee jimicsiga ubadka la siinaya ubadku maxay ka faa'iidayaan. Waxa la yiraahdaa dhinac kasta oo ay ahaato nolosha ubadka faa'iido ayaa waa maxay ugu jirta, hadday noqoto jirkooda, hadday noqoto dhinaca bulshada, hadday noqoto dhinaca akhlaaqiyan, hadday noqoto ama ubadkiin wax soo kordhiyaan oo xataa wax cusub keenaan, hadday noqoto maxay daata ahaantooda iyo naf ahaantooda, hadday haato waa maxay cilaajiyan iyo waa maxay dee waxyaabo badan ay ka bixinayaan, hadday noqoto iyo weliba caqliyanba in dhinac kasta nolosha marka laga eego ubadka in jimicsi iyo ciyaaro kala duwan loo sameeyo dhinac kasta waa maxay faa'iido ayay u tahay. Haddaba waxa aynu ku horeysiin doonaa oo aynu waa maxay ku bilaabi doonaa maadaama ka warramaynay dee waa maxay jirka aynu ka hadlaynay bal hadda ilaa 8 faa'iido oo marka ay u leedahay waa maxay jirka ilmaha ee ciyaarta ama jimicsigaasi marka ay u leedahay ayaynu maanta insha Allah tacaala waa maxay ka warrami doonaa. Marka waa faa'iido waxay ku jirtaa waa maxay jimicsiga ubadka dhinaca marka jirkooda. Waxa la yiraahdaa qaybta koobaad ee waa maxay jimicsiga ubadka jirkooda uu leeyahay waxa weeye waxay marka jimicsigu wuxuu adkeeyaa isla markaana awood u siiyaa ubadka murqahooda iyo lafahooda. Marka meesha u baahan in ubadka laga koriyo laga dhisana waa labada marka in lafahoodu adkaadaan iyo marka ay murqahoodu marka ay marka koraan. Marka kaasi waa ka koobaad. Ka labaad waxa la yiraahdaa waxay marka ubadka ka yareysaa macnaha in weight badan ama ubadka waa maxay inuu culays badan uu koro ay ubadka waa maxay ka yareysaa. Inaga Soomaaliland waxa laga yaabaa inaynu ubadka waa maxay ku dadaalo waalidku waxay yiraahdaan ubadka waxa ma siisid miya ilmo waxa ma cuno miya, macnaha waxaan jecel ubadka inuu culays badan saarno oo fat badan iyo dux badan iyo weight badan waa maxay uu koro. Marka iskuulkii buu ka imanaya cuntadii buu cunaya hab kadina uu seexanaya kadina uu soo kacaya kadina uu cunaya kadina uu seexanaya. Marka ilmihii waa maxay dee waxa koray oo kaliya waa maxay barulun baa kortay, laakiin hadday lafihiisii noqoto hadday masalis murqihiisii noqoto waxa maad dhisin marka barulun baa ilmihii waa maxay baad u soo kordhisay laakiin wax kale maad soo kordhin faa'iido leh. Marka waa maxay jimicsiga marka aad siisid jimicsiga waa maxay aad siisid waxyaabo borotiin marka aad siisid marka waa maxay ilmuhu masaliskiisu marka ay u koraan. qaybta dambe ayaan ka warrami doonaa marka caafimaadka meelaha gaarno insha Allah. qaybta saddexaad waxa weeye baa jimicsiga ubadka faa'iido u leeyahay waxa marka uu sidoo kale yareeyaa ubadka uu ka ilaaliyaa macnaha waxyaabo la yaqaan diabetiska marka sokorta aynu ilaahno inuu ku dhaco marka ubadka waa maxay uu ka yareeyaa. ka afraad marka jirku faa'iido u leeyahay jimicsiga waxa weeye in waa maxay ilmaha marka dhiiggiisa maxay uu hoos u dhigo isla markaana waxay cholesterol waxyaabaha waa maxay uu ka ilaaliyo. Marka ka shanaad waxa weeye isagana marka muhiimka ahi waxa marka waa maxay awood uu siiyaa waa maxay jirka ilmaha marka jirkiisa sida caadiga ahba ayuu marka qawi maxay ka dhigaa marka oo saxiib mid caafimaad qaba. Marka isla waayo sababtaada murqihiisa maxay xisran maxay ayaa marka aad u koreeya. ka lixaad waxa la yiraahdaa waxa marka jimicsiga ubadka uu ka ilaaliya xanuunada kala duwan ee marka ku dhaca qalbiga marka ama wadnaha ku dhaca. qodobka muhiimka waxa weeye marka isaguna ka toddobaadi waxa marka ay marka jimicsigu wuxuu aad u adkeeyaa isla markaana waa maxay ubadka waxa uu ka bi'iyaa macnaha dee tacabkii iyo daalkii iyo waa maxay marka ay ku mashquulsanaayeen maantana ma ay qabanayeen haddii marka uu ciyaaro
waxa la ciyaarta waxa ka beenaysa marka waa maxay waxaasan waa maxay ay marka waa maxay ka beenaysa marka macna daalkii faraha badnaa uu ka soo qaaday waxbarashada haduu meel kale ka yimid wuxuu qabanayay haduu jimicsi sameeyo ama haduu ciyaar qabto uu ka baayaa walaalayaal marka waxa soo dhani marka haduu wax dhiganayo isugu dar marka mana ciyaartiisa ciyaar mana waa maxay waxbarashadiisa marka ha dhigto ka qodobka marka toddobaad waxa weeye oo istagana marka isla markaan soo muhiimka waxa weeye ubadka qaar waxa laga yaabaa deesema inta cuntada markay cunaan hadana inay ku seexdaan ubadka qaar waxa laga yaabaa in abateedka waxa uu ka xidhmaba cuntada qaar baa laga yaabaa in ka cunin ba anay ku soconin ba ama food poison oo kale cuntada maxay ka xumaato oo kale waxyaabaha soo dhan waxa daawo ka walaal marka waa maxay ugu fiican waxa weeye intuu banaanka aado banaanka u sii deeysid uu soo ciyaaro jirkii uu soo furfuro jirkii uu soo kala baxo kadibna markii hadii marka abateedka uu ka xidhmay oo kale waxyaabaha soo maxay way u furmayaan marka faa'iido u noqonaysa marka qodobka marka u dambeeyo waxa weeye baa la yiraahdaa qodobka marka sideedaad dhinaca marka jimicsiga jirka ubadka faa'iido u leeyahay waxa weeye waa dhinaca marka aqliga marka waxa ilmaha maxay fikirkiisa iyo habka uu fakarayay waxa uu focus ka saarayo ayaa marka aad u kordhaya waayo markanoo de basketball ciyaarayo ama kubadda kurada ama maxay qorto qadamka kubadda lugta uu marka ciyaarayo ama marka maxay de basketball ku tartamay oo kale markasta wuxuu ka fakarayaa maskaxda uu saaraya macnaha soo focus ku gaari lahaa ama soo ku guuleysan lahaa ama soo maxay de koobka waxyaabo la qabanayo ama waxa soo maxay uu qaadi lahaa marka dhinacana waa maxay fikirkiisa iyo aqligiisa marka ayaa markasta waa maxay tensionkiisu oo aad ugu soo jeedaa marka maskaxda iyo aqliga maxay aad u shaqeynaysa marka laakiin markuu qalin iyo buug aad u dhiibtid oo guriga yimaado cunto aad ku guurto iska seexdo waxa ma furfurmin marka jirkiisina maad furfurin aqligiisina kamaad shaqaysiinin waxa ma kaamay soo kordhinin waxa laga yaabaa iska badaa wax kale inuu badeen nooca ka soo istaago maanta oo dhan sii soo socda maxay inuu nacaan dhici karta ama soo ku adago diiqad ku dareemaya inuu aado marka hadii ayna waa maxay u baahanahay inuu badka muruqooda waa maxay lafahooda sidoo kale maxay aqligooda isla markaana maxay caajska aynu ka beenin waxaasna hadeen u baahanahay waa in ubadka u ogolaano isla markaana aynu waqti siino inay maxay soo jimicsadaan noocyada kala duwan soo sheegna maxay ciyaaraha maxay ku soo ciyaaraan adigana faa'iido ku tahay isagana maxay faa'iido marka ay u tahay inaha sir maanta 10 ku jirnaa wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam